nin baa wuxuu ku qayilay tuulo yaro gumburaha banka la wada wada garanayaan waana bambay ku taala dhinacna gumbura oo dalaya dhinaca shil gumburaha banka ninkii uu dhaqaaqay bariyahana muddo qaadku wuxuu kugu dilaa markaad ka raagtay soo 4 biloodna geelu xirgeeyo ismay arag bahalka dabeetana laba mijood baarixi ah markii uu dam ka siiyay ayuu durduro wadaanta degta ku qaatay kadib reerkiisii oo qiyaastii jiray 5 kiiloomitir ayuu markiiba u dhaafay mid jiray ilaa 7 kiiloomitir iyo badh ayuu markiiba dafiska yiri assalaamu calaykum buuro gabadha caruurtii saxto maanta dalabatu calaykum wassalaam halku baadi ka weydiin lahaa way garanaysaa ninka ayuunbu gurigii ku foofay ilaa waan waalane dabadeetana dabkii baa faynuskii buu dalacay dabadeetana dabkii buu israaciyay waaba shidayba wuxuu deydayay wuxuu cuno digsi yar oo xoogaa galay ku jirto ayuu halkan ka helay tiibuu dabka saaray dabeetana haddana uu baarbaaro caaniyo waxa gardeela caanood ninkii guriga lahaa loo dhigayna halkan uu ka helo biliq buu ku siiyay waaba iska bilaabayba jam gabadhii way yaabanta way ama kaagtay inta miyuu ku joogaya may markuu intii cunay ayuu dabeetana shaarka la baxo haan halkan uu gedaanka u suray suunkiina waa furo halkan oo kale u dhigay biyo yar buu dabeetana soo qaado tashti jingad la oran jiray reermigu haysan jireen ayaaba horteeda dhigtay maradaabuu la baxay mise waaba ku hormeeday haddana gabadhii islaameed dhag markay xaaladdu halkaa marayso ayay gabadhii ogaatay ninkii hebela jaarkeeda hadda caawa inay u saaleeyno kadinkay ka booday may xasuusan ubadkeedii 7 caruur halkan u jiifay la docda isaga kuwiisu waa 3 ma tirsanaya baday degdeg wax la yiraahdo baalku leeyahay wax ay carartaba ninkii dabeetana uu maydhay halkii gabadhu ay ka toostay ayaa iskala bixiyayba waana cadeynaya dhag waariyaan war gabadha xagee qabatay uu dhaqaaqay xiraadu istaaga oo ni waxba kuma sameeyay iyo salon baad ka baxday maxay kaaga dooday hadda gurigiisa ma waxa dhacday gabadhii goor nus saacana ay sii lugeynaysa nus saacana ay soo lugeynaysa ayay gabadhii keentay markaasay soo horgashay tiisi waariyaan war maxaa guriga islaameed ku galiyay waxa tidhi guriga war guriga miyaad garanaysaa maxaa guriga islaamka galasuul gurigeedii war guriga ku jirtay miyaad garanaysaa waa gurigii reer hebel alla tolaayo ceeboobay markaas yiri nayaahe nabar halka suunkii iga eeg nabar hanta gedankeeda shaarkii iga eeg nayaahe oo ninkana caaniye farxadii waan ka cunay buura oo caaniyana waan ka cabay de halkiiba iyadoo daadihinaysa ninkii ka saartay in yar kadib markii kadinka la marayo sheekadii lagu qoslayo ayaaba kiyo ka tuuray haduu ugu soo galay dafaash baab kurka ka jarlaa kiyo ka tuurayana uu soo galay maxaa loo may de gabadhii waa orantay war qisada saa dhacday taasi waa tan baleeg waxa dhacday nin baa xagan Dubayda muddo 6 sanadood ku maqnaa ninkii dabadeetana wuxuu sameeyay ninkii in uu xoogaa adduuna wasaqul dunya la yimaado maalintuu soo galayba madaarka laga hortagay asxaabtiisii baa raacday dadka deeyaan ugu dambeeyay baa ka dhacday war halkee qaad macaan wallahi bahalkan maxaa barja saafiga leeraba macaan biiray de nin hamuumaya nin jeebadiina aad buu ugu raadan yahay nin iyo kiilo qaatay buuri hase yeeshee markii guri gambisa la fadhiistay ee saacadii dambe ay marayso ninkii wuxuu waaniyo dabba la isuray qaadkaad ka raagtay orado xamaamka galba lagu yiri ninkii dabeetana xamaamku galay shaar safari oo kaakiya iyo macawis baranda iyo garan iyo ninkis buu xidhnaa koow shaarkii oo kale tuu garba soo galiyay wuu iskaga soo baxay maqsinka fadhiga hortiisa waxa ka soo horjeeda mid hurdada guriga 5 dumar laambad weyn baa ka baxaysa ayaa Maria ku kaawadeen gabadhii guriga mid u dhaweyd ninkii dabeetana soo shaarkii galaga muriya gacan oo qaawino alaabtii balolaya ayuu iska soo baxay dadka dumarkii ninkii maan soo digay miyaan ninkii la galbinaya naakaynu qada karnay miyaan xagga darbiga la wada saaray wajiga markuu gurigii galay nimankii waa ku qasbay war waa maxay wallahi asal baad u marqaat maxaa dhac war mariyaaga alla tolay wari xamaamkan ku soo ilaabay buuri mu oran bal tuwaalan guntadan ay dhiibay oo soo noqday dumarkii buu soo maray xaqoodu u jeestay igu iskusmi bilis waa liga raali hadii mar reetaan igu qaawan baan idin hormaray haday ma kale u qaaway waxa igu dhacday aniga tii igu dhacday waxa dhacday inaan habeenada kamid ah anigoo nin walaal u dhintay masaajidkan hortiisa qaadka ku iibin jiray cabdi heetiya la oran jiray ayaan jaadka la iibin jiray waxoogay waxbuu ku tusayaa habeenka mushaqaayada ay ugu yaraatay kadib waxa la yidhi 28 mijood soo haro bahal fayaan la oran jiray waxaan la seexday xaafad siinay leeraa waxaan soo kacay goor 12 ama dalqadoola cunto badan aan cuni karin daylan dheefshiidkii baan xaloo dhan seexanay
ayaan in yaroo bariisa meel jagax kaga siiyo waxaan damcay 2 mijood oo dhiiga kuleeya bal hadda inaan 25 kan mijood ka sii cuno hase yeeshee markii aan dhadhamiyay wuu isu kay furfuray wuxuu yiri xalay mushaqaada ku yarada maxaad intan yar kabade goob geenid kaba iibgeyn inta ma maad isaga saartid waxoogay axbaab bahalkuna faxalnimana uu kugu abuuraayo axbaabtii la joogtayna adoo 10 mijood baan siiyay jaadku 8 buu haayo waxaan cunay 18 mijood kale 18 ma jaan ayaa waxaan fahmay markaan soo baxay 7 barkii baa ahayd ma ilaa 7 rubuc inay dhaxani jirto 92 October baa ahayd waxaan dareemay dhaxantaasi galito wuxuu orodkii keenay inaan sii gucleeyo barigan yaraadna 85 ordaagi Hargeysa ayaan ka qayb galay nimankii hiliblayaasha dameer hiliboo laga baduweyn loo leeyahay kamid ah waxa dhacday oo bareeg la qabtiyo buuq ma laho baruurisa iskaga balbaloo jeey barigaana dabatana inaan orod isa soo dhigo naftaydii way ilowday inaan gud curmarayo waxay xusuusatay laamida siinay way madowday waad soconaysaa 3 nin baa igu soo baxay markaas oo isku barbara labada koonayaashu sigaar bay cabayaan dab bay weeraafinayaan naftaydii waxay sheegtay labada nin way kala fogayna waad jabay hadaa laamida kale xataa dhex marbaan sidii soo mid bilaaysto baa u dhaxeeya kiiw ma ka soo go'ay waxa dhacday kiiw waan ugu tuuray aniga 4 ilig bay iga dhacay 2 feerood bay jabay 9 ka qodob wajiga la habeenkaas la talo hasayeeshe waxa aniga waliba la qabsay orodkii baan kii ku dhaafay anigii eheladii waxa tir cidii gudjay makada nooge feesh baa lagu dhuftay markii la deedeeyay waxaan soo tusay isla goobtii iyadoo la leeyay odaygii Ibrahim Cadaana halkan jin ku dardaro ninba meesha day soo meedaana laga qaaday